inaan maanta soo booqnay si aan u soo bandhigno una dhiirigelino hibooyinka dhalinyaradeena marka iskuulkan geli doonaa wixii aan kala kulanno waan idin arki doontaa daawadayaal sidaad arkaysaan hadda waxaan gudaha u soo galnay iskuulkii aan idin sheegaynay hadda garabkaygu taagan yahay qalabkan kala duwan ee kala kaakaanka muuqaalada hadda idinku tusnay ayuu ardaygani sameeyey ama ikhtiraacay baa la odhan karaa magacaygu waa maxamed axmed qorgaab maxamed axmed qorgaab qalabkan oo dhan baad samaysay ma adigaa sameeyey mise cid kale kula samaysay aniga keligay baa sameeyey waayahay galaaskii baad dhigtay galaaska 7 Anuur Academy waayahay imse jirbaa tahay waa 17 baan ahay 17 maxamed waxa sameeyay bal qalabkan noo sharax walaalo sharaxaad yar oo kooban naga sii badan oo kale waxay ka samaysan tahay looxaan waxaana galaya 3 jaar waxaanay kala leedahay meeshii laga baqtiinayay iyo meeshii laga siraadayay sidoo kale waxaan ku qoray calankii jamhuuriyadeena waxay leedahay toosh kaas oo aad ku akhrisan karto casharada iskuulka waxaanay ka samaysan tahay looxaantan iyadoo waa diyaarad iyada laftarkeedu ku buufisan yahay calankii jamhuuriyadeena labada dhinacba dhowr jeer waan isku dayay mid duulaysa inaan sameeyo laakiin waan ku guuleysan waayay sababtoo ah qalabkii loo isticmaalayay ayaan dhulkeena aalin markii aan ku guuleysan waayay waxaan sameeyay inaan isku dayo inaan sameyn karo diyaarad u eeg diyaaradaha caadiga taasoo muuqaal ahaan iyo midab ahaanba u eeg markaana aan la doono inaan u eekaysiyo diyaarad dalkeenu leey inkastoo aanu dalkeenu diyaarad u gaara lahayn waxay leedahay 3 taayir iyo motor sidoo kale waxay leedahay meel laga baqtiinayo iyo meel laga shidayo waxaanay ka samaysan tahay looxaantan qafiifka ah faaradaha ka soo hadha halkana iyadu waa caag halkan iyaduna waxa weeye caag iyaduna laakiin inteeda kale oo dhan waxa weeye looxaanta qafiifka ah tan iyadu waa iska rogo taas oo ramuud leh ramuudkeeduna uu yahay maray ciid iska rogayso iyo maray soo cashanayso buurigeedaba sidoo kale waxay leedahay iyadu motor halkan waa ramuudkii keebkaas wuxuu dhaqaajinayaa dib uu dhaqaajinayaa keebkana hore u dhaqaajinayaa marka waxa galay iyada laftirkeeda 3 jaar halkan oo kale lambar baan kaga dhigay lambarka baabuurta taarikada sidoo kale halkanna waa iyadu dhamaanteed looxaan bay ka samaysan tahay marka laga reebo taayirada iyo qaybo kale oo xarka markaad gaadhiga nimka dhaqaajinaysay ama suurogadan sariijiyo miidhan baa ku xidhan sariijiyadani maxay ku faa'iideynayaan sariijiyadan iska rogooyinka waxaa kor u kiciyo buuriga naqas dabeed halkii naqaska waxaan anigu geliyay inaan shiliishi geliyo dabeetana shiliishadu marna ay fadhiisiyaan marna ay kor u qaadaan matalan sidan oo kale halkan fikradan waxay u dhalatay waxaan horta markii hore aan waxba bilaabeen aan aqoonsanaaday in dadka electronkan soo saaray ay bini'aadan u yihiin isla markaana ay naga maskax fiicanayn ee ay naga dadaal wacan yihiin isla markaana aan isku dayay bal inaan sameyn karo waana ku guuleystay alla mahadi kamid ahayd iyadu laftarkeeda waxyaabaha igu dhibta badnaa inaan sameeyo iyada laftarkeeda waxaan ku guuleysan waayay 2 jeer sameynteeda laakiin si aan markii dambe ku guuleystay mar saddexaadkii waxay ka kooban tahay 8 shiliish 8 shiliish oo midba mid hagaayo matalan imika kan hadaynu ka bilowno kan ugu duduwayaa wuxuu sahlay marba inay gees qabato marba geestay ku shubaysa ciida ay qabato kanoo kale waa soo laabitaanka kaasoo kale waa ciid u qubaya halkan bay laga hagayaa laftarkeeda shiliishadaas oo dhan meeshii laga hagayaa waa bartan xaruntooda guud waxaana iyadu ka samaysan tahay looxaan jaldigan sare waxa ka hooseeya kartoon jaldigan sarena waxa weeye jaldiyadan la geliyo buugaagta xagga dambe laga geliyo hawta iyaduna dhagxaan bay ku shaqaynaysaa ma iyadoo dhagxaan kuma shaqaynayso kaliya ta guluubka yara halkan ka baxaya
ayuunbaa ku shaqeeya dhagxaan laakiin inteeda kale shiriishyadaasunba hagayaya tan waxaan bilaabay 2016 baan si toosa u bilaabay laakiin waxaa ka horeysay maraan miyiga joogo aan yaraa oo aan waxyaabo kuwan ka fudfudad aan samayn jiray gaarigan wuxuu ka mid yahay waxyaabihii ugu dambeeyay aan soo saaro waana baabuurta qafilan ee had iyo jeer askartu ka haysato ama militarigu sidoo kale waxa afkeena lagu yaqaanaa baabuurta qafilan ee baybeega kale iyo laakiin sida afafka kale ee reer galbeedka waxa lagu yiraahdaa army truck sidoo kale isagu wuxuu leeyahay daynabo wuxuu kale leeyahay solar isaga laftarkiisu xaanjaar kuma shaqeynayo halkan waxa ugu jirta kaydiso cadceedda uu ka qaadanayo solartan oo marka kaydisadaasina ay u sahlayso inuu xilliyada aanay qorraxdu jirin uu sii shaqeeyo waxyaabahan aqoon baanu isticmaalnay aqoonteedana in loo kabciyaan doonaynaa si aan adduunka wax cusub ugu soo kordhiyo farsamada gacantu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee bini aadan qabto sidoo kale waxaan ku dhiirigelinayaa da'yarteena kuwa tahriibaya iyo kuwa ka cabanaya sidoo kale shaqo la'aanta inay bartaan farsamada gacanta oo ay dalkooda wax soo saaraan maxamed adiguna aad iyo aad baad mahadsantahay walaal waa maxbuub xuseen ismaaciil dalma